بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. halkaan ku sugan magaalada Copenhagen xarunta dalka Denmark. halkan waxa lagu qabtay kulan soo dhaweyn oo loo qabtay waqti ka socday dalkii Somaliland oo uu hogaaminayo wasiirka cadaaladda Somaliland Axmed Cadare. xafladan iyo uu la socday xogayaha guud ee xisbiga kulmiye Xasan Saciid Yuusuf. daba xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen horena ay u qaban qaabiyeen xafladii dibadhiska ee xisbiga kulmiye laanta Denmark. tiimkan horteeda soo fadhiya oo ay ka tahay gudoomiyaha garabka haweenka laanta kulmiye dalka Denmark Fatima Maxamed Cabdullaahi. ay markii hore waxaan ku soo dhaweeyay dhinaca fadhiya gudoomiyaha ku-xigeenka Axmed Muuse Idaar. waxaa fadhida halkaasi qasnajiga guud ee laanta kulmiye xisbiga kulmiye dalka Denmark Anisa. waxaa dhinac fadhida iyaduna oo xubin kamid ah waxa weeye Muna Cumar Gooray. haddaba marka ugu horeysa waxaan siinayaa kelmad bal hadda is cadeeya barnaamijyadan iyo xafladahan quruxda badan aad soo qaban qaabisaan xoog badan iyo xoolo badan ayaa gelisaan mal malaynayaa ka warrama jawiga caawa ku soo gabagaboobay xafladan aad ku soo dhaweyseen wasiirka iyo xogayaha ku soo dhawo Fatima dunia garabka haweenka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي الوالد والسلامة يعني عاو waxay ahayd farxad aad u weyn bay ahayd anagoo soo dhaweynay wasiirka cadaaladda iyo gudoomiyaha guud ee xisbiga. farxad weyn bay noo ahayd maanta ay bishu Ramadaan tahay oo dadku daalan yihiin haddana dadka waxa ka muuqatay firfircooni aad u fara badan iyo farxad baa wajigooda ka muuqatay saacadahan ugu badan saas ay tahay haddana waxaad moodaa dadku inay full energy ahaayeen ما شاء الله dadka igala soo qayb qaatay oo anisi ka koob tahay oo garabkayga fadhida Muna iyo Rashid oo iminkaasna halka taagan muxuu hayay ayaan aad ugu mahadcelinayaa oo la'aantooda aan waxba ii suura galeen maanta inaan iyo Axmed inaan waxba ii suura galeen oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye aan waxba ii suura galeen aad ugu mahadcelinayo la'aantii waxba ma noqdeen aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad mar walba ii garab taagantihiin xisbigana aad ugu heelantihiin xoolo iyo xoog iyo wax walba aad u galisan qurbaha waa la ogyahay qof waliba يعني تيسي بحيسا حدنا دتكو حد مودا إني أهلينين ما شاء الله وحن رنكرا والله لانت الدنمارك وحي لامي جوري حسبك كل ميلا أساسي كم إذا حيد إمي كانوا حن هو إن تلا مها وهو على رها بدن أيان إمي كانوا هو كل دليل اسكمية لنا نجو أدبنا ما سنتين صديق أيان هالكنوا جم هذا علينيا ويسوقنا مر والبا قيب لحالنا قلقاته isku imaantigayaga iyo hadalladayada waxaan ku leeyahay aad baad u mahadsantahay Sidiq la'aanta waxba nooma suura galeen marka aad baad mahadsantahay ku mahad celinaya ilaahay ku soonkooda iyo salaadooda iyo ducadooda iyo sadaqadooda baa la aqbalo ilaahay ha inaga yeelo aamin. aad iyo aad baad mahadsantahay gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye ee laanta Denmark Fatima Maxamed Cabdullaahi. waxaa dhinaca fadhiya gudoomiye ku-xigeenka laanta kulmiye xisbiga xaakimka kulmiye ee dalka Denmark Axmed Muuse Idaar. kusoo dhawow kelmadaada gabagabada xafladan aad kusoo dhaweynayseen wasiirka iyo xogayaha guud xisbiga kulmiye Xasan Saciid Yuusuf iyo wasiir Axmed Cadare wasiirka cadaaladda. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوة وحنو وياك بيان كسر دوينا ضامن حسب كلمية حسب حاكمك دنبان وسيرك عدالة سومالان أحمد عذراء iyo xogayaha xisbiga Xasan Yuusuf waxaa farxad bay noo tahay dhammaan hadaan xisbiga nahay mahad gaar leh qaybta garabka haweenka oo aad iyo aad xisbiga la'aantooda dumar ugu jireenba gaaraan Faati iyo gruubkeeda iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay hadaan xisbi xaakimka Anisa iyo gabdhaha hawsha la qabto dhan Muna Cumar dhammaan gabdhihii la shaqeeyo dhan insha Allah waxaanu leenahay xisbiga kulmiye waxaanu sameynay dib u kaclayn sidii loo ogyahay bas sidii bishii labaad markii xisbiga dib loo abaabulayay diig badan lagu soo shubay dad badan noo yimaadeen وإن شاء الله waxaan rajaynaynaa inaanu xisbiga guul iyo midnimo ummadda reer Soomaaliland meel walba joogaan ama Denmark joogaan ama meel kale joogaan inaynu sameyno barnaamij xisbigeenu ku dhaqan galo waxyaabo fara badan taas oo ah waxyaabo aan xigsanayno. waxaa mahad leh wafdiga noo yimid in aqbalay imaashiyeena iyo dhammaan dadkii ka soo wada qayb galay iyo Sadiq oo ah nin mar walba naga hortaagay xagga iskaasiinta iyo saxaafadda. أضبط واسنت gudoomiye ku-xigeen Axmed Muuse Idaar waxa uu ahaa aabaha Muuse Idaar nin aad iyo aad ugu firfircoon
horumarka iyo dib-u-dhiska dalka Somaliland isagoo ka mid ahaa legislative council iyo dib-u-dhiskii sharci dejinta dalka. adigu halku gaadhay ma gaadhaysaa? والله واحد النبي ما قالوا كوده لكن وكل واحد هو كده لكن لا تدعوا نقول صح عدي الله دي لهايدمو ان شاء الله باذن الله كريم اكتفاء ان شاء الله كل waxa ka muuqda weji furan iyo kulli aqoon fara badan waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tahay gudoomiye ku-xigeenka laanta kulmiye xusbul xaakim kulmiye ee dalka Denmark Axmed Muuse Idaar halkan waxaan ku leeyahay kelmadda aan siinaya aslajiga guud ee xusbul xaakimka kulmiye Anisa Aadan kusoo dhaw wax sheegayso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ لي سلام يا كل ما يورم يسمع لنا ورم با. وحن سلام يا من حولها سمع لنا محمد أحمد محمود السلايو مرودي ساء من الورس مدحون كوعبين كسيلي حاسكيسة والسيرة كلها والسيرة كلها جورتها كلها وكيلها يوك شعب سمع لنا ورم. أنت عمرك الله جرهبه أنت عمرك الله صار عفو. waxaan aad u salaamayaa laanta Denmark ee kulmiye oo ah laan aad iyo aad u firfircoon intii umka u dambeysay laga bilaabo bishii labaad bartamaheedii ilaa hadda oo aan leeyahay wax weeyaan laan yani didiile leh oo magaranaysa ay isku tashatay oo iyadu aan ahayn isku riix lahayn oo aad iyo aad u qaaliya anigoo aad ugu hanweyn gudoomisadayda فاطمة محمد عبد الله منى عمر هورية قدومي كحجينكيجا أحمد موسى إدار حسن ما أنت نجمع قرن أنشوفين نك عيارها رشيد أفهيانك أو آدي هدان وسووا نلتن أنا وحبها نم وقعدت هذا مديجة إلى هاي جوش حسي مركزته وحلاي هاي هلك هذين قصي ودنا وأنو سدا سوق رب تاجنانه وأنا إيجين hareeraheena inuu sidaa u socono inaynu gaarayno meeshii ilaahay inoogu talagalay inuu higsanayno oo uu ay tahay inuu ku guuleysto maanta mar labaad xisbiga kulmiye xukuumadda insha Allah biidmillah oo aan leeyahay insha Allah biidmillah waxaan arki doonaa Muuse Biixi Cabdi oo madaxweyne ah oo labadiisa marweyne hadda taagay insha Allah biidmillah aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum anoo salaamayna kan habarka wahay sideed aad iyo aad u mahadsantahay anaguna waxaan leenahay guuleysta Muna Umar soo dhawow kelmadaada. السلام عليكم مقعد ومن عمر هورية وكمل حسب الكلية إن شاء الله عاون كم كسر دويني مدحنا وقتي من وطن كي وإحنا رنا يا مدح بس كسر دوادة ما شاء الله ده حسب الكلية ونأركي يا فرعون وماشي تشوجا إلهي وحن كبر يا أنا حقوقه iyo naftooda iyo wax walba iyo maalkooda u horeen ilaahay inuu sidaa ula garab qabto waxaan oran lahaa Faaka Cabdullaahi ma sha Allah waa gudoomiyaha garabka haweenka mar walba u garab taagan u heelan meel walba taagan ma sha Allah ilaahay ma aragtay sidee xooggeeda iyo ay ula garab taagan tahay wax walba ilaahay inuu iyadana la garab qabto anisana sidoo kale inamada kalena waxaan oran lahaa sidoo kale marka insha Allah waxaan rajaynayaa